Bismillah, inshallah muuqaalkan si dhammaystiran waxaanu ku tusi doonaa sida u samaysan kartid account Binance oo verified ah meel kasta aad joogtid gaar ahaan haddii Afrika iyo Soomaaliya aad joogtid. Marka waxaa arkaynaysa aad baahidiisa ay u taagan tahay gaar ahaan waqti xaadirkan la joogo arday badanna ay daneynayaan waana very important in account Binance ay leedahay oo kaadoo cidna u baahnayn inay kaa caawiso. Inshallah muuqaalkan baa ku baranaysaa sida u samaysan kartid step by step. ugu horreyn waxaad tagtaa browserkaaga mobile baa ku sameynaynaa kadibna waxaa ku qortaa Binance abna dabcan way leeyihiin laakiin anu always waxaan prefer gareeyaa inaan browserka ka samaysto because of isaga more safer. So website-kooda ugu horeeya www.binance.com baa dooranaysaa kadibna waxa uu simple ku yahay isaga isla markiiba halkan baa waxaa leedahay continue with Google kadibna waxaa dooranaysaa yani Google accountska kala duwan ee kugu jira browserkaaga midka doonaysa inaad ku samaystid account-kaaga Binance-ga simple maca passwordkiisa automatically isaga ayaa qaadan doona. So intaas markaa kasoo gudubtid waxaa muhiim ah sidoo kale inaad accept gareysid termskooda kadibna halkani waxa uu ku siinayaa wax loo yaqaan referral ID walow uu optional yahay haddana waa very important. Markale waxaan leenahay next. Marka sida arkaysa hadda toos wuxuu inoo keenay dashboardka account-geena Binance-ga laakiin ma ahan account dhammaystiran oo wuxuu u baahan yahay inaan verify gareyno waana waxa ugu muhiimsan si featuresko dhan available kugu noqdaan account-kaagana more secure uu noqdo. Marka waxaan dooranaynaa halkan verify kadibna wuxuu ku siinayaa laba option abkooda inaad la soo degtid oo isaga verify gareysid ama inaad browserka still kusii verify gareysid. Marka maadaama browserka ku sameynay stillna isaga la sii dooranaynaa. Intaas kadib halkani residency-ga ama meesha hadda joogtid country-ga ayaa ka dooran doontaa kadibna waxa uu ku sheegi doonaa halkan inta daqiiqo ay kugu qaadanayso inaa markaasi lagu verify gareeyo haddii xogtaada ay sax noqoto. Okay, hadda aniga 7 minutes ayuu ii qabanayaa laakiin adiga 1 day 2 day bay noqon kartaa marka la yaabin. sidoo kale xogtana laga rabaa waxay tahay saddexdan step inaan buuxino. Personal information baana laga rabaa, by the way waxna laga rabaa government ID, sidoo kalena waxna laga rabaa liveness check wax loo yaqaano waa isla arki doonaa. marka personal information-ka waa noo bilaabanaya ama basic information-ka marka magacaaga oo saddexan baa halkan gelin doontaa first name, middle name iyo last name waxaa leedahay continue. halka nationality-ga ka dooro mar kale adoo falaarta furaya kadibna country-ga ka dooranaya dina waxaa leedahay continue. Date of birth-ka laga rabaa ama waqtiga dhalatay yearka ugu horeeya month-ga ku xiga kadibna day-ga ugu dambeeya waxaa leenahay continue. mar kale halkan wuxuu ku weydiinayaa home address-kaaga Soomaaliya sida ogna address ma laha laakiin wadada ugu caansan ee area-daada ku taala ayaa halkan gelin doontaa kadibna waxaa leedahay continue. Current residential address waxa la yiraahdo buu ku weydiinayaa address-ka kii hore ayuu automatically u soo akhrinay laakiin waxa ku daraysaa postal code-ka 252 oo kale iska gelada yani Soomaaliya joogtid postal code ma lahan. By the way city-da magaalada joogtid gasho sida Muqdisho, Hargeysa waxa la midka dina country-gana isaga ayaa automatically u akhrinaya oo adiga markii hore soo doorto soo galiyay kadibna waxaa la continue. hadda waxaan soo gudubnay qaybtii document verification-ka marka waxaan dooranaynaa passport kadibna waxaa leenahay continue. waxa uu ku weydiinayaa halkan inaad dooratid passport-kaaga inaad toos sawir uga qaadid adoo adeegsanaya kaamirada mobile-kaaga isla iminkadan dee ama inaad markaas muxuu ahaayay sawir already qaaday oo kugu jira yani mobile-kaaga gudihiisa inaad soo upload gareysid. marka midkaan oo soo doorani kadibna waxaan soo upload gareynayaa sawirka ku jira mobile-kayga waxaana leeyahay markaa continue. iskana hubi fadlan inuu sawirkaas yahay sawir clean oo nadiif ah haddii kale hadhow toole waa lagu decline gareynaa maku accept gareynaya. intaas kadib waxaa arkaysaa inaad tagtana loo saaray saabaa uga gudubnay inaa markaa ID-geena aan upload gareyno. marka waxaa ku xiga liveness check waxa loo yaqaano oo aha in si loo xaqiijiyo loo confirm gareeyo inaad sawirka passport ka muuqanaya adiga tahay oo xogtaada is leedahay waa inaa wejigaaga toos kaamirada ugu aadisa ayagaa sawiro kaa qaadanaya sidoo kale amarey ku siinayaan waxay ku leeyihiin wejigaaga dhinacaas ujeeda xagga ujeeda afka kala qaad macnaha sida inay kugu ciyaarayaan oo kale laakiin muhiimadda waxay tahay loo xaqiijiyo inaa adiga tahay qofkaas waa fahan Soomaa. so haddii aad diyaar tahay am ready waa leedahay kadibna waa iska soo xallin doontaa. marka aniga waxaa arkaysaa hadda inaan iska xalliyay waxayna ku leeyihiin marka account-gaaga hadda wuxuu ku jiraa under review 7 daqiiqo qaadan kartaa sida hadda aniga soo sheegan wayna ka badan kartaa 1 day 2 day bay qaadan kartaa. marka email bay ku soo diri doonaan oo markaas ay kugu xaqiijinayaan haddii xogtaada ay sax ahayd in account-gaaga markaas si toos ay kugu verify gareeyaan markaasna sida arkaysaa wax ka iibsan kartid account-gaaga yani iska sell gareyn kartid everything markaas feature kasta inuu available ku noqon doono. haddii xogtaada ay xog khaldanayad ama passport-kaagana si fiican loo arkeen xogta ku qoranna hadhow toole way ku soo decline gareyn doonaan balse ha ka quusan
dhammaystirana mar kaleeto ku celi. Marka waxaan rajeynaya hadda adoo cidna u baahnayn inay ku caawiso in adiga samaysan karta account Binance oo verified oo dhammaystiran. Muuqaalkan intaas ku eegay waxaan rajeynaya inuu ku caawiyo. Wassalaamu calaykum.